الرحيم أنا كل شغلين ما كجرنا أو نبض قبنا حدود إلى جيجا أو دحدين نبجرو جرين ما أنت مركان توصلني أرورتم با مكلاكيان نوقف سدي أو زو وتو واحد وتو قري وتو إنفنتري ورالدي واحد لنا أي لقب سدينه دقاكين ميل جوجا با جيجا ميل كستا قب سدين سبب من قرنين ودبات تجرين هيك من قصة أسرار أنك وجوهنا واحد كل سبب كانوا ضايع عن قرنين وأنا لقب سدين عاد ما دحتوين كنفتو والو ويراري والو حريري ما دحين من السوينية مقرنين تاسا كل إنان كل ما حنقرها عن قد بيان دوني شعب كينا وقعدوا بس شعب كينا وقعدان ساعدنا كل واحد السوق اللي مقرني تاسا قاعدين سوجديني يعني waxaan ku sugannahay xaalad adag oo loo baahan yahay shicibka iyagu inuu maanta dadnimadiisa cadeeyo Itoobiya maanta waa qowmiyado inay qowmiyadi caawayna qabsato iyadoo awalba tulli soo maraysay waa ayaan daro iyo dhimasho ummadda Soomaalida ee dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya gaar ahaan Jigjiga waxaan leeyahay xoogga militariga soo galay xoog inaga saara istifaac baan u baahanahay ka kacaan idin leeyahay ka kaca بسم الله الرحمن الرحيم waxaan ku sugannahay magaalada Jigjiga gaar ahaan xarunta xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida Itoobiya annaga oo nabad qabna oo seexanay ayaa saaka waxaan ku waabarisanay ciidamo aad u tiro badan oo gaashaaman oo lagu soo shubay magaalada Jigjiga guud ahaan xarumaha dawladda madaxtooyada xarunta xisbiga iyo dhammaan goobaha mataqaanaa shacabka ay ka adeegtaan intaba waxa dhibaatooyin iyo hagadaamooyin aad fara badan ay ku hayaan waa shacabka madaxweynihii iyo mas'uuliyiintii ugu sarreeyay deegaanka hadda xaalad ay ku sugan yihiin ma garanayno waxa weeyaan madaxtooyadii waxa isku weeray ciidan aad u tiro badan xaaladda in ay dileen inay mataqaanaa afduubeen iyo waxay hadda xilliga madaxweynihii ku sugan yihiin ma ogin taasina waxa ay mataqaanaa jabinaysaa nidaamkii federalismka constitutionkii waddanka u yaallay shuruucdii dalka u taallay waxaana sameynaya waa dowladda federaalka ugu horeeya ra'iisul wasaaraha waddanka marka waxaan leenahay dadka shacabka ee Soomaalida Itoobiya waa qoomiyado waxaan nahay qoomiyada Soomaalida dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya hal loo istaago midnimadeena hal loo istaago mataqaanaa isku duubnideena hal loo istaago sidii loo difaacan lahaa waddankeena iyo sharafteena iyo karaamadeenna cid kastoo inagu soo xadgudbaysana maanta waxaan haysanaa chance in la inoo adoonsado ma sidii awal inoo adoonsanay in la inoo dhibaateeyo sidii awal inoo dhibaateeyay ma aha haddaan qadiyadeena iyo sharafteena maanta difaaci weynana inaan dayuusin doofaaro aan noqonayno ayaa ka cad marka waxaan u baaqayaa dhammaan dadka Soomaalida ee dibadda daafiyada joogana in arrinta la socdaan in laga dhiidiyo in cid kasta mataqaanaa dareen wadaniga ay muujiso isla markaas si degdeg ah hawsha wax looga qabto wabillahi tawfiiq bismillaahir rahmaanir rahiim xarunta deegaanka Soomaalida Itoobiya xarunta xisbiga saaka deegaanka Soomaalida Itoobiya aroortii waxaan ku waabarisanay iyadoo kaare iyo beebe iyo ciidan xoog badan ku wareegsan yahay ciidanka wax loogu wareejiyay wax loo keenana ma garanayno korbaana laga qabsaday dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya dawlad deegaan buu ahaa Soomaalida Itoobiya dalka Itoobiyana wuxuu ku dhisnaa federalismka dalka Itoobiya uu ku dhisnaa qoomiyad dalka Itoobiya kamid ayaanu nahay federaalkuna wuu noo dhaxeeyay marka maadaama dastuurka dalka Itoobiya ay dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ay ku dhisnay dastuurka Itoobiya waa la jabiyay in la jabiyayna waanu arkaynay anagu waayeen oo dhan laakiin waxaanu isnaynay ninkoo dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya dastuurka ininku aad asaxiseen ha u hor jabinina qoomiyad baan lagu soo duushay ra'iisul wasaarihii dalka Abiy qoomiyad buu noqday lama nagu soo duulay meel walba ciidankii Oromo iyo ciidankii federaalka ayaa dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya maanta haysta Itoobiya in shacabweynaha Soomaaliyeed waxaan leenahay hal iska celiyo oranka hal iska celiyo Oromaha hal iska celiyo ciidanku waa Oromaha wadata Oromaha mas'uul waddanka qabata waxaan ugu qasba Oromanimada ugu qasba afka Oromo ku hadla way Oromaha intalisa abaagadaha intaliyo lama hayn maamulo yaan ugu qasbaya ma yeelayno ilaa qaf nafta ay naga baxayso kan ugu dambeeyay nafta ka baxayo ma yeelayno waa tuug dhalay hal iska celiyo oo meel walba laga hawlgala oo hal dhagax tuuro oo naftiina u huro oo waddankiina wadannimada عدة دقائق ويدا وديوسوا وصوماليا وساك ديجيدا دقائق ويدا وإسكعلي ويدا ومال إسكسار ويدا وديوس هل إسكعلي ورمضان هل إسكعلي وحوي إسكدوبنا وحوي بيكوي ماذا يعني فرنا هني من مدينة وحوي من مدينة صوماليا لقى شقية
wadanimada laga shaqeeyo dhiiggeena waxa weeye ha loo horo naf iyo maal ha loo horo hal iska celiyo oromada meel alla meel isku aragtaan hal iska celiyo meel saacad hal iska saaro waxaan leenahay wax wadanka ma weeraraya waa onaga weeraraysa onagana qabsatay oromana qabsatay abaagadana qabsaday ma yeelayno nafta waxa weeye lagu reynaa aad u maasanteed dimuqraadiga shacabka Soomaalida Itoobiya saaka aroortii waxaan ku waabarisanay in afgamin lagu qabsado kilkanay si cad baa afgamin lagu qabsaday constitutionka wax ka baxsan ma lagu sameeyay sabab male xukuumadana iyo xisbigana iyo nooyin baa afgamin lagu qabsaday madaxweynaha xaradiisii baa la weeraray ilaa haddana wuxuu ku sameeyay warkay Ethiopia federalism baa ahayd laakiin si cad baa naga loo qabsaday si cad sharciga lagu tuntay abiy baa ku tuntay lama ku tuntay si cad baa loo qabsaday oo ka madax banaan constitutionka Ethiopia lagu hagayo ka madax banaan waxaa la qabsaday waxaana soo weeraray oo cad dagaalkiina dhex maray Oromia ee dadkana lagu leenayo ilaa hadda maanta khayraadkan lahayn oo la rabay la qaato shacabkana iyo maalin kasta la leenayo waxaana loogu daray maanta in dhammaan awoodii xukuumadda la qabsado waa wax cad weeyaan maanta jijigan dhammaan meel kastoo taagto oral baa taagan meel kastoo taagtan oonaag baa wadata xaruntii madaxtooyada la weeraray wuxuu madaxweynaha ku sugay war kama hayno shacabka deegaanka waxaa leeyahay waxaa weeyaan in badan baan aamusnayn oonu islahayn dowladdan hadday mar timid isbeddelkan la jaan qaada waxyaabaha mataqaanaa khilaafka idin dhex maray idinkii Oromia hal xaliyo laakiin in madaxweynaha la diilo loo hanjabo waa lagu dilo la dhaw mar kasta isla markaana maanta la soo weeraro yay noqotay waxaan leeyahay iska halgama la dagaalama marna hoos fadhiisan mayno Oromo walaalana hoos fadhiisanin shacabkana waxaan leeyahay meel kastoo joogtaan ba dhiidiya ka halgama oo mataqaanaa iska saara mana ogolanayno in la baabiyo constitutionkan sharci baan u leenahay xaq baan u leenahay deegaan baan nahay dowlad baan nahay baarlamaan baan nahay xukuumad jirtaan nahay sharcin annagana faragelin karana ma jiro constitution faragelin mataqaanaa wax awood lagu faragelin karana ma jirto madaxweynaha anagi laakiin maanta iyo xukuumaddanadiiba in afgambi cad lagu sameeyo waa cad sidaas darteed shacabkeena waxaan leeyahay mar kasta in ay dagaal ay la galaan oo ay iska celiyaan cid kasta oo duulimaad ku ah systemkooda cid kasta qeero arisabno Minnesota lagu joogo wuxuu ku hadlay walaalkay arisabno dhexda ku hadlay walaalkay mar kastana wuxuu ku hameeyay inuu deegaanka Soomaalida oo nabad maanta ahaana deegaanka ugu nabad badan deegaanada Itoobiya oo ayna wax dhibi ka jirin caasimadeeda iyo deegaanadeeda oo nabada horumarkii oo saxawle u socda nabadii oo saxawle u socota shaqaalihi xafiisyada dowladda saxawle u socda maanta in lagu waabaristo xerad kasta oo ciidan xafiis kasta in loo dhigo gaari xeradii mataqaanaa madaxweynaha loo dhigo anagii mas-uuliyiinta hadda laftigeeda hadda meel aan mataqaanaa aanu meel isku soo ururnay weeyaan xaaladdanada sidaas darteed shacabkanaga waxaan leeyahay in badan baadna aamusnayd oo lahaydeen maxay u aaminsan yihiin oodna daliilayseen ood lahaydeen nimankan dagaalkana lagu haye cad ee dadkana la leenayo maxaad u aaminsantihin laakiin annagiiba maanta lagu daray